kusoo dhawow channelkayga Nahyan Cooking. waxaa ka heli kartaa cuntooyin kala duwan, isqurxin iyo waxyaabo kale oo badan. Alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabtayda kusoo dhawaada channelkayga Nahyan Cooking. ugu horeyn asxaabtayda waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad ii dhiirigelisaan, commentiga quruxda badan igu soo qortaan. dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin, kama daal inaan idin mahadceliyo. waxaa idin wadaa maanta digsiyadii aan idin dhahay hadda kahor video idinkaga soo sameynaa. digsiyada horta ani ma gadi, ani ma iibiye, laakiin waxaan ka waday maalintaas baastada waxay ahayd digsiga aan baastada ku miiraayay oo baasta meelka ii saarnaay iyo digsiga aan ku karinaay isku ekaay. marka saasaan u dhahay digsiyadeeda isku eg yacni mala yaabteen camal haddaa yacni aa u baahantiin video kasoo sameynaa dhahay. haddaa u baahantiin ani waxaan ka wada videoga haddii aad u baahantiin inaan kasoo sameeyo ama digsiyada aa idin tuso haddaa rabtiin aan ka waday. ma ahan inaa ani digsiyada gadaayo, digsiyada ani ma gadi, ani suuqa kasoo gata, ma fahanteen. marka digsiyada horta waa intaanu shay ka kooban yihiin. inta waxaa noo yaala 4 digsi oo isku eg. 4taan waa kala size, way isku eg yihiin kalarka laakiin kala size waaye. marka waa idin kala tusayaa digsiyada. kan ugu weynaan ka bilaabaya, kuwaan dhulka iska dhigaya si aad si fiican uga aragtaan. digsiyada horta asxaabtayda kana ugu weyn kan kiili bar 2 kiilo u karinaya. kana ugu weyn. waxaa ku xigo kana ku xigo kan kiilo karis meelahaas waaye. kiilo ka badan oo kariya, kiilo ka badan buu kariyaa kan. kana ku sii xigo kana kiilo qaad hadda qiyaasta kiilo uu kariyaa kan. kana kiilo qaad kaas adi kiilo bar uu karinaya, midka weyn mid ku xigo. marka saddexaada meeshaan 2 idin tusay, kana 3 ku kana ugu yar. marka digsiyada oo design-kan kuwa size-kan yacni kuwa oo design-kan oo daboolada leh kana ugu yar nus kiilo karis camal waaye. kan nus kiilo camal u kariyaa, kana ugu yar digsiyada. 4 digsi waaye hadda kuwa aan idin tusay waa 4. marka waxay wataan labadan dabool ma lahan. waa digsiyada oo pan waaye. kan pancake iyo waxyaabahaas ku duwan kartaa haddaa rabtidna waxaa ku karsan kartaa. kanna waxaa loogu talagalay shaaxa iyo kastarka iyo waxyaabahaas. haddaa rabtidna cuntada caadigana waa ku karsan kartaa, laakiin kastarka iyo shaaxa iyo waxyaabahaas loogu talagalay. marka digsiyadan saan waaye, kulli way isku eg yihiin. ani waxaan ku doortay inaa isweydiisina laga yaaba waxaa isku eg maxaa ku fashay. ani raqiiska ku raacay, runta in laisku sheegaa fiican soo maahan. ani raqiiska ku raacay. marka haddaa dhahdid kala gooni oo soo gadana halka digsi inta digsiyada aan kusoo gaday dhan hal digsi ku gadi lahay. marka dhaqaalahaas afgareynaya, ma fahanteen. marka ani hadda 4taan digsi iyo 2dan pan, 2dan yaryar wataan waxaan kusoo gaday 5,000 200 ay iga soo celiyeen. waa 5,000 $50 waaye. $50 2,000 maxaa la dhahaa $50 $2 la iga soo celiyay. waa 4,800 lacagta oo wadankan waaye, lacagta Kenya waaye. laakiin waa $48 waaye. marka sidaas ula socda. marka digsiyadan ma loogu talagalin qaandooyinka birta inaad ku isticmaashid. ani hadda marmara intaa is ilaawa aan ku isticmaalaa, anaga waa ku isticmaalnaa qaandada birta. saasoo kale u xagmanaya soo ma aragtaan, dhaxda saasoo ka noqonaa. haddii qaando shay bir aa u isticmaashid wuu xoqmayaa. marka anaga xitaa marmara intaa is ilaawna ku isticmaalnaa, saasoo kale u noqonaya. kana ani aan ku isticmaalay qaandada.
marka looguma talagelin inaad qaando bir ah ku isticmaashid. waxaa loogu talagalay qaandooyinkaani hadda wataan labadan qaanday wataan lagu soo siiyey aan kusoo gatay, laakiin kuwan waa kuwa oo feeg waaye, kuwa fiican ma ahan. laakiin waxaa jiro qaandooyinkan oo adaga jiro oo loogu talagalay weelasha in lagu isticmaalo, ama qaandooyinka oo lafta laf ma dhahnaa laf maso dhoob wax saas waaye. qaandooyinka aan birtan ahayn plasticina ahayn kuwaasna waa lagu isticmaali karaa, iyo qoriga qaandooyinka qoriga sida miikaha iyo qaandooyinka oo qoriga waa lagu isticmaali karaa. waxaan birka ahayn waa lagu isticmaali karaa. sidoo kale steel wire-ka caadiga siliga oo digsiyada kale lagu dhaqana laguma dhaqi karo oo uu xagxagaya saas oo marka steel wire-kaas kuma dhaqaysid. super bright ama kana ku isticmaalaysaa. ani kana igu soo siiyeen kan uu wataa, digsiyada kanay wataan, kan ayaga isoo siiyey digsiyaday wateen. ani laakiin hadda super bright waa isticmaalaa kan. haddii aad rabtid, haddii ay kusoo siinin xataa supermarketyada lagu gadaa, waa soo gadan kartaa kan, ama super bright-ka greenka ku dhaqi kartaa. steel wire-ka oo caadiga siliga suufkoo kale waa isticmaali kartaa, kan waa isticmaali kartaa. super bright-ka greenka waa isticmaali kartaa, laakiin steel wire-ka oo siliga oo digsiyada kale oo caadiga lagu dhaqo laguma dhaqi karo oo maxaa la dhahaa uu xagxagmaya digsiga, uu xagxaganaya steel wire-kaas. marka ha ku isticmaalinina insha Allah inaad ka bagateena rajaynaya. ani waxaan ku xushay waa raqiiska, way isku egyihiin laakiin lacag yar waaye, qiimo yar soo gaday. haddii aad rabtid ani hadda online-kan waa ka helaysaa. ani online-ka aan ka dalban rabay, anoo online ka barbaaray aan ka helay, anoo dalban rabo maalin anoo suuqa aaday aan kusoo arkay suuqa, saasa suuqa ugu soo gatay. laakiin online-ka ka heli kartaa. online-ka aan ka helayn wuxuu ahay Jumia online. haddii aad Kenya joogtid Jumia online shopping waaye haddii aad Kenya joogtid, laakiin wix Kenya ka baxsan aniga warka ma hay. sidoo kale ani meesha aan kasoo gaday, ani Mombasaan joogaa. suuqa aan kasoo gatay waa Nawal Center waaye. Nawal Center aan kasoo gatay, laakiin meel kasto suuq weyn supermarketyada oo kale suuqyada waaweyn waa ka helaysaa. Mombasa haddaad joogtidna Nawal Center ka helaysaa. haddii meel Mombasa ka baxsan oo Kenya kamid aad joogtidna supermarketyada iyo meelaha oo maacunta lagu gado waa ka helaysaa siday ila tahay. laakiin ani markii hore online-ka ka dalbaday, aan ka dalban rabay, anoo weli aan dalbanin suuq maalin aan aaday kusoo arkay. marka saasaa Nawal Center uga soo gatay. suuqa Nawal Center dadka Mombasa jooga yaqaanaan kulley. marka ka faa'iidaysta. intaas idinka dabageynaya. digsiga ani ma gadi, digsiyada ma gadi, ma iibiyey, laakiin waxaan ka waday digsiyada yacni size-ka ay kala yihiin iyo si isugu eg yihiin, iyo waxaan ka waday iyo maxaa la dhahaa iyo beecooda yacni raqiiska ani ku raacay. way isku eg yihiin. dadka inay isweydiinaan laga yaabaa waxaan isku eg maxay ku fashay gabadha. waxaan ku falay dhaqaalaha safgareynaya, ma fahanteen? marka dhaqaalaha ka safgareyso hal digsi 5 kun 6 kun ku qoran digsiyada oo caadiga haddaa rabtid kala nooc inaad gadatid. halka digsi waxa ku qoran marka 5 kun 6 kun 7 kun wax saas ku qoran. laakiin haddii kulli saan wax isku eg qaadanaysid raqiis waaye. $50 hadda 4 digsi iyo labadan paan 6 digsi aad iska dheen 6 shay aan ka soo gatay $50. 6 shay $50 ku soo gatay. marka saas aan ku raacay. way isku eg yihiin laakiin kala size waaye, way kala weyn yihiin laakiin way isku eg yihiin. saas aniga aan ugu soo gatay wax isku eg. laakiin haddii aad rabtid, haddii aad jecleen inaad gadatid wax isku eg aad isticmaashid, waxaa samayn kartaa kuwa kala nooc soo gadan kartaa oo beecooda qaali haska ahaadan. yacni jooska adaa iskale, qof walba iyo dooqiisa waaye. marka waa kaasa intaas idinka dabageynaa. marka ka faa'iidaysta. intaas idinka dabageynayay. wax gabdho badan ay soo weydiiyeen, yacni gabdha ay soo weydiiyay abaayaal asxaabteyda kamid waxay dhaheen digsiga goorma video, digsiyada goorma video ka soo sameynaya, digsiyada goorma video ka soo sameynaya. digsiyada ani ma gadi. yacni waxaan ka waday digsiyada isku egaan ka hadlaya. markaas saas idin dhahay waa idin tusaya haddaad jeceshiin isoo sheegan ka waday. ma ahan ani inaan gado, ma ahan ani ma gadi.
ani ma gadi ani ma iibiye laakiin waa idinka dabageynayay waa kaasa hadee sidaas ula socda asxaabteyda qaaliga channelka hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe ii saar hadii aad hore ila joogto video ii like garee share garee ehelka asxaabtaadana la wadaag waa mahadsantiin dhamaantiin asxaabteyda qaaliga assalaamu calaykum